fatahaadda uu samaynayo webiga Shabeelle ayaa waxa uu saameyn xooggan ku yeeshay deegaanka Galmadoobe Bari oo hoos yimaada degmada Bulaburde ee gobolka Hiiraan. Galmadoobe oo ka mid ah deegaanada uu ku fatahay webiga ayaa hadda ka mid noqday deegaanada saameynta xooggan ku yeeshay webiga, waxaana la arkayaa biyo aad u fara badan oo dhex eegaaga beeraha iyadoona dalagyadii dhammaan ay jareen biyaha. Dadka deegaanka ayaana la tacaalaya biyaha sidii ay uga xakameyn lahaayeen maadaama beeraha qaar ay ku yaalaan meel taag ah, waxaana ay dowladda iyo ummadda Islaamka ay ka codsanayaan biyahani mar waliba ku soo fataha beeraha in garab laga siiyo sidii looga xakameyn lahaa. waxaan ka mid ahay dadka deegaanka Galmadoobe Bari degan. waxaan 24 saac faran u hayo waa biyo. beeri waxaan ka tabcalaanay waa biyo 24 saac saaran u xirnaa, saaran u daba joognaa. saaki ilaa hadda xirmaan haynay waa u jeedin loorasho iyo carrada meesha la saaray. waxaan ku saarnay waa gacmo hayno. marka dalagii la dhigay intuu bislaan biyo baa imaanayo. waa xamiir badan oo iska soo dilaacay, waa kiliyaal badan maadaama anagu beerinay aan nahay oon beera muugi anagu meel kale aan shaqo aan ku lahayn ay beeriin biino daba taagan yihiin. dawladda iyo dadka walaalaha muslimiinta waxaan ka codsanaynaa hadday wax nagala qaban karaan waa u jeedin waxaan la tacaalul marnay. marka ninkii walaal wax nagala qaban karo iyo dawladda waxaan ka codsanaynaa inay alahan oo rafaad aan marnay aad u jeedin ninkii walaal ama ninkii oo islaanimo waa la isku qabanayo u jeedin alahan aan rafaad marnay. Iskariya Cali Raage, warbaahinta qaranka, Bulaburde.